relationship naga dhaxeeyay sheeko sheena gabadheedii yahay relationship sheeko way naga dhaxaysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقيقة قاية قبل وين سلامي. مركل يسكسون نقد وركسن ولكن مسألة حبدي يوتيوب كاتك داون إنسان ويوتيوب كني يوتيوب كالصومالي محمد ودان فضلا هديت هاي بوقشة كوريس سبسكرايب ونصر لايك تنقدر جمال الكنافرو سمو غالد عن سوق لي أو نقطة قف كوري عدا وضع ما تسند. سؤال هذا محا إنه سيدا وايا. وركي هورا ورسو داف فداد مقشع عيب الله أستر عيب ما أسترنا. arrintii Safiya Tusma ee labadan bari baraha bulshada aadka u qabsatay iyo ninkii la lahaa Safiya Tusma ayuu muuqaal ka duubay waliba asagoo xiriheedii ah oo qabo asagoo waliba xaaskiisi ay tahay balse asagoo waliba xaaskiisi ay tahay muuqaal aad u farxuna laga duubay Safiya Tusma qaarna loogu hanjabay in la soo deyn doono qaarna baraha bulshada lagu faafiyay oo Soomaali oo dhanna qaarkood ay aragtay arrinkii maalinba meel buu harsaday maalinba waxba laga soo sheegaa Safiya Tusmo calal xumadeeda iyo ilinteeda iyo oohinteeda waan soo aragnay waxaan aad u baadigoobaynay ninka eedda laga tabanayo inuu soo hadlo oo sida ay wax u jiraanna aan wax ka ogaano arrinkii sida anaga aan u haysanay si ka duwan waji cusub ah ayuu la soo baxay waxa kamid ah wiilkii la lahaa xalay waa la qabtay oo waa la xiray waliba dhowr meelood ayaa la soo galgeliyay mar la leeyahay jigjiga lagu xiray marna la leeyahay darar baa lagu xiray walow ay isla tahay kilinka shanaad wixii xariga lagu sheegayo dhan been ayay noqotay oo wali wuxuu dhex joogaa Hargeysa sanadin dhahay waxa waraysi ka qaaday goor aan aad u fogeen gabar wariya oo lidaado Sagal Mustafa waraysigaas oo aad xasaasi u ah oo run ahaantii adigan idaawanaya marka daawato ay ku soo baxayso sidii wax loo maleynayay si ka duwan hadad maqasho ceeb Allah asturo ceebi ma asturna ma asturna marka waxaan rabaa intaanan u guda gelin falanqaynteena inaan bal muuqaalkii ninkii lagu sheegayay Safiya Tusma inuu qabo oo si live ah u hadlaya cadeymo fara badanna miiska soo saaray bal ila daawada ninka gabadhiisu ay tahay rugiisa oo ay tahay inaad yani maadaama rugeeyay tihiin inaad noo xil qalisaan asturtaan Safiya waxay sheegtay in gurigeedii ay ka dhex bilaabatay sheekadu oo yani adigoo ninkeedii aad ceebaysay bulshaduna waxyaabaha aadka ay uga dareen celiyeen ee looga fal celiyeen ilaa anagu aanu ka xumaanay ay tahay naagde ama gabadh uu ninkeedii ceebeeyay oo maradii ka qaaday arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa san hore kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyo adiga hore kugu sheego wax madax banaana oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya relationship naga dhaxeeyay sheeko sheena gabadheedii yahay relationship sheeko way naga dhaxaysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto haddii wax intaa ka duwan oo la hayaa jirtana cidii haysaa soo marto diyaar baan waa marka waxaad leedahay wax qabisa oo meesha jirta maba jirtaba maxaad ku cadeynaysaa wallahi kulli gurgu waa wax weyn Safiya oo gabadh caana marka la isguursanayaan wax qarsoon ma marka la isfurayaan wax qarsoon ma marka hadda salahan walaashii Safiya san anu iyada ka maray ama kelibada daawada saxsan bayhaas marka koowaad ee ay yani arkan la isku sheegay waxay sheegtay in relationship iyo qof relationship ay haysato oo relationship waad ila daawateen muuqaalkii halkaas waxaa ka soo baxday arrin lama filaan ah oo markaan runta ka hadlo marnababa wax kale waan filanaynay xumaanta ka dhaxaysa labadooda waxyaalaha meelaha lagu wado in lagu hanjabay Safiya Tusma muuqaaladii laga keenay kuwa kale oo ka fil darro iyo qaab darro badan in baraha bulshada la keenin doono ayadoo dhowr jeer ay tiriyaan la isoo yaryaraynay hal mar naftu hay dhaaftay hal soo daayo hadaladii Safiya Tusma markaan dib ugu laabano iyo waxa meesha yaalo iyo qabisti la sheegay
kafiya kaleeri ayay noqotay waxaana meeshaasi ka soo ifbaxaya in waxyaabo badan ay qaldan yihiin safiya tusma miyaa sax ah mase ninkii gabadha qabay hadalkiisaa sax ah safiya tusmana way sheegtay oo waxay tiri ninku waa ay qabaa asagana wuxuu taagan yahay xiriir saaxiibtinimo mise qabis xiriir saaxiibtinimo anigii safiya wuu naga dhexeeyey balse waxa la yidhaahdo qabis nagama dhexaynin warkaas waa cad yahay hal su'aalo la weydiiye maxaad ku caddayn kartaa safiya tusma waa qof caana guur ma qarsomo yiri waa run oo soomaalida markaan yacni ay mahmaado waxay tidhaahdaa guur iyo geeri midnaba ma qarsoomo okay intaas markay sheekada marayso haddii safiya tusmo maanta intaasoo soomaali maxamed ay u wada istaagtay waxa aan ku difaacaynay maysan ahayn magaca safiya tusmo oo keliya waxaan ku difaacaynay inay tahay hooyo soomaaliyeed waxaan ku difaacaynay oo xoogga ugu weyn aan gelinaynay inay tahay xaas la qabo haddii laakiinse ay soo ifbaxdo oo safiya tusma lama qaba la yidhaahdo intaasoo muuqaalo ahna laga keenay afka iyo gacanta halaysi saarta waay marka ceeb midii ugu xumayd hadday kow tahay marka ayadoon laysqabin ee intaasoo video anshax darro ah la duubay haddane barihii bulshada lagu baahiyey haddane midba meel intuu ka soo hadlo oo war soo gudbinayo bulshada soomaaliyeed maskaxdiina yaan lagu cayaarin arrinkan maalinba meel buu lugta la sii geli doonaa meesha uu marayana meel qurux badan ma ahan meel qurux badan ma ahan reer baydhaboodka waxay dhahaan walaagii la sheego wallay ka jiro shalay waxaa la lahaa safiya tusma video laga keenaa wixii waa la keenay hadda waxay taagan tahay ninkan inuu yiraahday anigu ma qabo maxaad ku cadaynaysaa guriga geeri ma qarsoomo waa cadaynta ugu dambaysa waaye marka waxaan sugaynaa safiya tusmo inay soo hadasho ay soo cadayso in ninkaani qabay iyo inuusan qabin sababtoo ah shalay ayada afkeeda ka tiri waa ninkaygii asagaana i ceebeeyey asagaana ka dambeeyey asna wuxuu taagan yahay xiriir saaxiibtinimo naga dhexaysay laakiin xaaskayga maysan ahayn haddii marka xiriir saaxiibtinimo idinka dhexaysay labadiinna ina adiga ku difaacnana xaq ma ahan ina asaga difaacnana xaq ma ahan balse waxa aan difaacayna waxay ahayd inaad tahay hooyo soomaaliyeed iyo in aad tahay xaas la qabo oo xalaal ah xalaashaan kugu difaacaynay laakiin haddii meeshu xaaraan soo gasho allahuma balaqtu wax annaga aan shaqo kulaynahay habeerate ma jirto insha allahu tacaala xaqaa lagu tagnaado wax walba oo jirana allahu subxaanahu watacaala ayaa ku caalin ah muuqaalka xigtaan kulmidin walaalkeen maslax cabdiyoole soomaaliya ha noolaato